Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada warbixin ku saabsan xidigaha. Waa warbixin aad idiin anfici doonta oo ku saabsan macluumaad aan ka soo ururinay xidigaha. Ka hor inta aan barnaamijka gudaha u gelin, waxaa muhiim ah in aan ka jawaabno: waa maxay xidig? Xidig waa dab weyn oo cirka ku daadsan. Xidigta adduunka u dhow waa Qorraxda oo energy badan siisa dhulka. Xidigga kale ee u dhow waa Proxima Centauri. Qorraxda waxay adduunka u jirtaa 449,600,000 kiiloomitir. Qof bini'aadan ah oo xidigta u dhowaan kara ma jiro. Xidigta waxaa la arki karaa markii ay qorraxda dhacdo oo keliya. Haddaba waxaa lagama maarmaan noqonaysa inaan ogaano muxuu yahay cilmiga loo yaqaan cilmi falaga, marka af Soomaali laga dhigana noqonaya cilmiga xidigaha. Cilmi falagu waa cilmiga barashada xidigaha, dayaxaanta, galaksiyada iyo dhammaan koonka aynu ku noolnahay. Cilmi falaga waa qayb ka mid ah sayniska oo si toos ah u sharaxda barashada koonka. Qofka aqoonta u leh cilmi falaga waxaa loo yaqaanaa xidigisyahan ama astronomer. Waxaan wax yar ka soo qaadan doonaa taariikhdii cilmi falaga. Dadku waxay weligoodba jeclaayeen inay fahmaan, isla markaana ogaadaan in duni kale ay jirto, sida Shammeere, Qorraxda, Dusaa, Waxriir, Faraare iyo Cirjeex oo isha lagu arki karo ayaa aqoon yar loo lahaa tan iyo 10 qarni ka hor, kuwaas oo saameyn ku lahaa dadkii waqtigaas noolaa. Waqtiyadii hore, dadka xidigyahanada ahaa waxay aqoon u lahaayeen sida iftiinno gaar ah cirka u dhex maraan xidigaha qaar waqtiyada ay soo baxaan, kuwaas oo ay u isticmaali jireen inay ku safraan oogada dhulka iyo badaha waaweyn dhexdooda. Ilbaxnimooyinkii hore sida Giriigga, Shiinaha, Baabiloon iyo kuwa kaleba waxay aaminsanaayeen in dhulku bartan u yahay dhammaan koonka. Haddaba muxuu ahaa ilbaxnimadii Baabiloon? Ilbaxnimadii ugu horeysay ee yeelata aqoon iyo faham meerayaasha waxay ahayd Baabiloon oo ku dhex taalay Mesopotamia. Waqtiyadii u dhaxaysay 2000 sano ilaa 1000 sano ciise hortii, qoraallo duug ah oo ku beegan 700 sano ciise hortii, kuwaas oo ka hadhay ilbaxnimadii Baabiloon. Waxaa ku xusan liiska dhowr meere uu ka mid yahay Waxriir. Sidoo kale waxaa ku qornaa liiska socodka meerayaasha iyo meelaha ay ka iftiimaan, waqtiga habeenkii iyo waqtiga la arki karo sanadka. Sidoo kale taariikhda cilmi falaga waxaa gacan ka geystay labadii boqortooyo ee kala ahaa Giriigga iyo Roomaanka. Horaantii ilbaxnimada Giriigga, aqoon la mid ah tan Baabiloonta uma aanay lahayn meerayaasha iyo xidigaha, laakiin qarnigii 6aad ilaa qarnigii 9aad ciise hortiis ayaa qabiilada Pythagoras ka samaysteen qaacidooyin cusub oo ay ku qeexayaan qorraxda, dayaxa, dhulka iyo dhowr meere oo kale oo ku wareegaya dab bartanka ka ololaya. Pythagoreanska waxay ahaayeen dadkii ugu horreeyay ee sheegay in xidigta la arko qorrax dhaca iyo tan la arko qorrax soo baxu inay yihiin xidig isku mid ah. Si kastaba ha ahaatee, horaantii qarnigii 1aad ciise hortii ayaa Giriiggu horumariyeen xisaabinta meelaha iyo waqtiyada la filayo in la arko xidigaha, taas oo u sahashay inay ku kala ogaadaan xilliyada waqtiyada roobka la filayo iyo in ay adeegsadaan socdaallada safarka. Waxaa sidoo kale gacan weyn ka qaatay taariikhdii ama horumarintii cilmi falaga Muslimiintii noolaa horaantii qarnigii 11aad, kuwaas oo aqoonta iyo cilmiga dowladda Islaamiyiinta aad u horumariyeen fahamka iyo adeegsiga cilmi falaga. Waxaa jiray dugsiyo gaar u ah barashada cilmiga xidigaha, kuwaas oo lagu baran jiray waqtiyada iyo meelahay ka soo baxaan xidiguhu, isla markaana safarleydu u isticmaali jireen jiheeye ahaan. Waxaa la sheegaa in bartankii qarnigii 12aad xidigyahan Ibn Bahaaj uu sheegay in uu arkay 2 meere oo weji madow aadna ugu dhow qorraxda, kuwaas oo uu horaantii qarnigii 13aad ku fasiray saynisyahan Qutb al-Diin al-Shiraazi inay ahaayeen meerayaasha Waxriir iyo Dusaa. Taas waxay muujinaysaa heerka aqoonta fiican ee muslimiintu waqtigaas u lahaayeen cilmiga xidigaha iyo sida ay u isticmaali jireen. Horaantii kacaankii sayniska ee qaaradda Yurub, waxaa la fahmay in meerayaashu yihiin duniyooyin dhisan lehna jidh la mid ah kan dhulka. Aqoonyahanadii cilmi falaga waxay isku keeneen cilmigii xidigaha ee dhammaan dunida ka jiray, waxayna ogaadeen in dayaxa iyo qorraxda ay ka duwan yihiin meerayaasha kale. Sidaas darteed waxay ku dareen liiska ka duwan meerayaasha. Haddaba waa inaan wax ka ogaanaa culimmadii laanta xidigiska ee Islaamka u hana qaaday. Falagyaqaanada dunida Carabta ee magaca leh waxaa ka mid ah Yacquub ibnu Tariikh, Al-Khawaarizmi, Al-Battani iyo Cumar Khayyam. Cilmiga xidigiska oo loogu magac daro hooyada sayniska ayaa waxaa ka qayb qaatay kobcinteeda culimo xidigis oo taariikhda Islaamka door weyn ku lahaa. Waxaana nimankan ka mid ah Al-Suufi iyo Al-Tuusi iyo kuwo kale oo aad u fara badan. Nimankan caanka ah takhasuskooda aqooneed wuxuu badankii ka soo jeedaa laanta xisaabta, sababtoo ah cilmi falaga qof aan xisaab aqoon ma baran karo, kamana faaloon karo. Alifaad, xog ogaal, adeegsiga toorbinada,
ama diiradaha aragga fog iyo aruurinta qoraal waxay u baahan yihiin maskax xisaab taqaan. Dayax gacmeedka iyo aaladaha wax cabbira ee loo adeegsado barashada iyo u kuurgalka xidigiska iyo guud ahaan cilmiga falagga shaki la'aan waxaa ku dheereeya reer galbeedka. Sidaas ayayna arrintu ahayd 100 sano wixii ka dambeeyay ee qarnigan, balse aqoonta xidigiska waxay bilaabatay gaar ahaan culimadii Islaamka waxay bilaabeen 2 qarni kadib bilowgii taariikhda Hijriyada. Haddaba halkeen ka joognaa bulsho ahaan Soomaali marka aan nahay adeegsiga aqoonta xidigiska? Dhanka Soomaalida iyo waxay ummadeena ka taqaan cilmiga xidigiska iyo adeegsigiisa baaris dheeraad ah ayay inooga baahan tahay sidii reer miyiga maanta ay u adeegsadaan aqoontooda xidigiska. Waxaan kusoo gabagabeynayaa halkan barnaamijkii xidigaha. Waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iideen. Inta aan xalqad kale ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo.